السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن صاحبada aan jecelnahay meel walba aad joogtaan iyo waqti walba idin tahay Ramadan Kareem kula caam antum bikhair waan salaamaya dhamaantiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo nolosha Imaaraadka Carabta waxaan ka hadlaynaa waxbarashadeeda waxaan ka hadlaynaa shaqooyinkeeda waxaan ka hadlaynaa waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxaan ka hadlaynaa fursadaha shaqada dadka jooga Soomaaliya ma u bannaan yihiin dadka inta joogo waxaas oo dhan ayaa waxaan rabnaa inaan soo koobno marka haddaad ku cusub tahay channelka waxaan ahay Amir channelkan waa Amir Soomaali marka soo dhawow waxaan rajeynayaa inaad meel fiican gaarsiisan channelkan insha Allah haddii aan ka hadalno horta Soomaalida ilaa iyo goorme ayay ku noolayeen Imaaraadka Carabta marka la fiiriyo taariikh ahaan ilaa iyo bari hore waqti hore ayay Soomaalida ku nooleed Imaaraadka Carabta ilaa iyo waqtigii Sheekh Sayid adiga dawladda siyaad barasiye timiyadii ka hor ayay yani Soomaalida ku noolayeen xaggan xataa waxaa la sheegaa in yani Sheekh Sayid oo ah sheekh yani Imaaraadka Carabta ay aad u qadariyaan kamid ahaana madaxdii hore ee soo martay ayaa xataa la sheegay inuu yani Soomaalida ka dardaaramay oo dhahay sii daaya kaliya way shaqaysanayaan yani wax dhibaato idima geysanayaan marka Soomaalida waqti hore ayay imaaday Imaaraadka Carabta wayna ku noolaayeen waxaa jira xataa kuwa badan ilaa iyo awowgood xaggan ku dhashay adiga aabahood ku dhashay asaga ku dhashay awowgii ayaa xaggan imaaday macnaha awowgii xaggan imaaday aabihii xaggan ku dhashay asaga xaggan ku dhashay ilaa iyo jiilba jiil marka waxaa jiro farqi yar ee u dhaxeeyo Carabta iyo yani wadamadan kale ee Europeanka hadii waxaa laga yaabaa 10 sano aad joogtid inaad sharci ka heshid amaba baasaboor aad heshid laakiin Carabta saas ma ahan waad imaanaysaa waa shaqaysanaysaa waxaad shaqaysatida waddanka kula naqanaysaa uma imaanaysid qaxooti maqaabilan waxyaabaha qaarkood ay ragaas ay sameeyaan ma sameeyaan ciir ma bixiyaan waa imaanaysaa waa shaqaysanaysaa marka shaqaysatid kadib wixii aad shaqaysatay ayaad kula naqanaysaa reerahaaga marka nolosheedu caadiyan waa iska intaas maciishad ahaanteeda horta waa qaali waa sax mararka qaarkood dadku waxay dhahaan iskuma dhigmaan mushaarkeeda iyo yani nolosheeda balance ma aan ayay dhahaan marka tusaale ahaan oo kaleetood markii xaggan la joogo horta heerar kala duwan jiro heer sare heer dhexe heer hoose ayaa jiro shaqooyinka marka la dhaho bayska caadiga ah lagu shaqeeyo wax ka hooseeyana way jiraan wax ka koreeyana way jiraan bayska caadiga lagu shaqeeyo oo la dhihi karo qofka wax fiican wuu qaataa waxa waaye waa 5,000 dirham adiga 4,000 dirham 3,000 dirham 2,000 dirham dad qaato way jiraan marka 5,000 dirham lacag ahaan waa intaas waa $1,362 waay taasi waa iska bayska laakiin way jirtaa kuwa ka hoos qaataan 2,000 dad qaataa jiro dad waxaa jirto 1,000 iyo jab qaato waxay ku xiran tahay qofka shaqada uu haayo ayay ku xiran tahay marka intaasi inaad ila fahantay ay rajayna taasi waa tan shaqada tan kaleeto waxay tahay fursado ma uga bannaan yihiin dadka Soomaalida ah ee wata ee jooga waddanka jooga way uga bannaan yihiin Soomaali badan jirto waddanka wax ku soo bartay ee imaaday Imaaraadka Carabta imaaday kadibna ka shaqeeyo way jiraan aniga aan kula hadlayo waddanka wax ku soo bartay jaamacadda Soomaaliya ka soo baxay haddana intaan ka shaqeeyaa marka habab kala duwan iyo meelo kala duwan ayaa loo soo maraa imaanshaha meeshan marka siiba dadka yani dhaqaatiirta meeshan fursado ayaa uga bannaan inkastoo hadda waxyaabo kaleeto ay iska jiraan culays
dhanka baasaboor Soomaali baasaboorkeena uu jiro. haddana waxaa jirto fursado badan ayaa jiro dhanka caafimaadka. qofka yacni hadduu dhaqtar yahay oo kaleeto ama haddii uu nurse yahay experience fiican uu leeyahay, inta hadduu imaado imtixaan uu gelaya, hadduu imtixaankaasi ku baaso kadib wuu shaqayn karaa. marka kuwa badan oo waxaa jira markii hore ay imaadid imtixaana waxa u galaysaa dowladda u galaysaa imtixaankiisa hadaa kusoo baxdid oo ay fursadaasi aada heshid, kadib ayaa waxaa raadinaysaa shaqada raadinaysaa. dowladda waxay ku ogolaanaysaa inaad tahay, waxay ku aqoonsanaysaa inaad tahay qof neerisa ama inaad tahay qof dhakhtar ah ama inaad tahay qof laaba, adiga siday ahaataba adiga xirfadaadii ku aqoonsanaysaa inaad waddankana ka shaqayn kartid. ruqsadaasaa lagu siinaa. marka ruqsada lagu siiyo kadib ayaad shaqada raadinaysaa. shaqooyinkana meeshaani waa la helaa oo way badan yihiin dhanka caafimaadka marka la dhaho. xataa waxaa jirto dhanka caafimaadka fursado ah, yacni qofka haddii uu shaqadiisa fiicanto wax badan uu ka shaqeeyo wuxuu qaataa golden visa ama iqaamada goldenka u qaata. goldenkana waa 10 sano yacni kadib waa bedelaysaa. sida caadiga kuwa caadiga normalka hadda waa 2 sano kadib inaad bedeshid waay. marka taasina fursada way bannaan tahay. waxyaabaha ugu muhiimsana waxay tahay luuqadda, inaad luuqadda ku hadli kartid. waddankani waa waddan carabeed, luuqadda carabiga waa number 1. haddii aadan carabiga aqaanin wax mushkilad ma lahan. sababta waxay tahay hindida way imaadaa, carabigana ma taqaano, laakiin waa ina englishka taqaanaa oo aad ka dhisan tahay. haddii aad english aqaanin, yacni dadka aad la macaamilaysid ma ahan dad Soomaaliyeed, ma ahan, waa dad carabeed. marka waa inaad englishka taqaanaa amaba luuqadda carabiga aad taqaanaa. labadaas muddood haddaad taqaanid meeshaani waa ka shaqayn kartaa. fursadaha shaqo helitaankana way badan tahay 100%, laakiin waxay ku xiran tahay qofka waxa uu rabo inuu ka shaqeeyo ayay ku xiran tahay meeshaan. haddaad dhahdid horta Soomaalida u shaqeynaha oo kaleetood, Soomaalida shaqadeeda waa sida Soomaaliya markaa joogto kaleetood waaye. qaabab kala duwan, waxaa laga yaabaa mushaarkeeda iyo waxeeda iyo waxaa laga yaabaa sida rabtay inaysan naqanin. laakiin haddii yacni bulshada caalamka kaleetood aad la shaqaysanayso kaleetood, fursadaheeda iyadana way bannaan tahay. marka waxaa jirto Soomaali badan ee ka imaado Kenya ka imaadaa jirto, inta imaado shaqooyin raadsato, markay heleen kadibna xaggan ka shaqeeya iyadana way jirtaa. marka waxaan leeyahay yaan lagaa basanin, waa fursad yacni dahabi ah. kulli wax walbo aad u baahan tahay waxaa waaye waa loo dadaalaa oo juhdi badanaan loo galaa. marka waxaan rajeynayaa inaad wax un ka fahanteen muuqaalkan. marka wixii kaleeto dheeri ah commentiga. Assalaamu calaykum.